Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. ay 27 bisha tobnaad 2019 waxaa si rasmi ah dib ugu furmay kalfadhiga 45aad fadhigiisa labaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland. mudanayaasha golaha wakiilada dawladda Puntland waxay maanta ka doodayeen ajandaha qabyada qoraalka ah ee golaha wakiilada dawladda Puntland ku shaqeynayo iyo dhismaha ajandaha rasmiga ah ee ku howlgalayo golaha wakiiladu ka howlgalayaan fadhigan 45aad ee soo socda. xildhibaanadu waxay soo gudbiyeen qaab qoraal ah u soo gudbiyeen ajandayaasha la doonayo inay ka mid noqdaan fadhigan ay lagu soo daro isla markaana goluhu ku shaqeeyo. maanta waxaa la dhisayay habkii ajandaha goluhu uu noqon lahaa. doodu maanta intaas ayay ku ekayd. berri ayaa insha Allah la soo saari doonaa haddii la yiraahdo ama goluhu ansixin doona ajandaha rasmiga ah oo goluhu ku howlgalayo fadhigan 45 casho ah ee soo socota. markaas insha Allah ila wadaagayna haddii Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad buu mahadsantiin. Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran.